hogaamiyaha ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta Ismaaciil Haniya ayaa khudbad dheer u jeediyay shacabka ku nool magaalada Gaza iyo guud ahaan dunida inteeda kaleba. wuxuuna khudbadiisu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo la xiriira duqeynta ciidamada Israa'iiliyiinta ay ku wadaan magaalada Gaza ee dhulka Falastiiniyiinta. hogaamiyaha ururka Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa sheegay in dadka ku nool magaalada Gaza aysan ka guuri doonin dhulkooda ayna ka difaacan doonaan ciidamada Israa'iiliyiinta. wuxuu sheegay inay guul dareysan doonaan Israa'iiliyiinta iyo wadamada taageeray sida Mareykanka iyo qaar kale oo kamid ah wadamada ku yaala qaaradda Yurub. wuxuu si gaar ah uga hadlay in ururka Xamaas uusan dilin shacabka sida lagu eedeeyay, balse wuxuu sheegay in Israa'iiliyiintu ay yihiin kuwa caruurta iyo shacabka iyo haweenka iyo dadka aan waxba galabsan laaya ama dila mar walba. wuxuuna ururka Xamaas ku tilmaamay inuusan ahayn urur argagixiso ah, balse uu yahay urur u dagaalamaya xorriyadda dadka Falastiin ee ay ku soo duuleen Israa'iiliyiintu.